السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشي دا قيمها يقدرين تنقمضنو رمضان كريم ميلو البعض نقد داوانيسان halkani waa xarunta telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Daawadayaal waxaan jeclaan lahaa inaan halkan idinka soo gudbino barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono haddii Allah awoodo la raali ka noqdo xiriyaha qaxootiga ee wadanka Kenya iyo waliba dadka Soomaalida ay ku soo barakacay dhibaatada ku haysata halkaas. marka hore waxaan jeclaan lahaa bal inaad ila milicsataan barnaamijkii daawasho wacan. أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها أحاول أكتم همومي saacadu waa 6 iyo bar subaxnimo dadku waxay u jarmaadayaan xirada hay'adda qaxootiga adduunku ay ku leedahay magaalada Dhagaxley ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya dadku way soo dheelmadaan isagoo qof walba uu doonayo inuu helo kaarka lagu diiwaan geliyo qaxootiga بأساك أهلك مرتين دائي ودمعك يا أبي حزنان قد جمعا بحزني أبكيت حين رأيتني بعد البهاء اصفر ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني سامحت فقرك ما له ذنب علي لا تشني ولعل قلبا طيبا يدي بآلامي وحزني ويمد كفا أبيضا ليزيح هذا الداء عني dadka ah qaxootiga cusub kaar lagama siiyo magaalada Dhagaxley ee waxa layman dheer loo galaa xirada ay ku leedahay UNHCR ee ku taala Dhagaxley ayadoona dadku safaf dheer kadib baawur basas ah lagu qaado tiro yar oo qaxooti cusub ah ayagoona la geeyo xirada qaxootiga ee Ifo halkaasina laga soo siiyo kaarka cunnada ورا صدري وخبيها أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها أحاول أكتم همومي وخبيها وأنا مجبور وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها لو إني كنت بنطقها معنها واقفة بالزور ولكن لازم أكتمها ولا بين معانيها لو إني كنت بنطقها معنها واقفة بالزور ولكن لازم أكتمها ولا بين معانيها ولو طال البشر تدري وتكشف خاطي المستور أببلش في شماتتها وبتعب من حكاويها أجمل وابتسم وضحك إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي
وعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من dadkan aad u jeedaan ee ku jira safafka waxay aad uga cabanayaan dhibka iyo gaajada aan xadka lahayn ee haysa Zakari Hasan Aadan Abdi Aliira waxaan ka soo tagay degmada Saakow 5 cisho ayaa wadada ka soo jirnay oo dhaxda gaari naga qarrimay waan soo rafaadnay marka hore beeralay baan ahaynay gacmahay wad arkaysaa oo inaan beeralay aan ahaan jiray xoolihii iyo beerihii kulli way baaba'aan adduunyadii kulli farahay ku baxday markana soo tagnay oo wadada safarka Ilaahay nooga soo bixiyay markaa imaanana masahay waxaan wadanay badar aan soo karsanaynay lacag wadanin badarkii markii oo hadda halkan wala soo gaarnay laakiin sahay oo keeda aan lahayn horta sideedaba waa sahay aha waynaga dhamaatay waxaan joognaa 2 maalmood maalin ayaa wax yar nala siiyay marka boonooyinka gacanta looga hiray wadankan markii in maani boonadayna gacanta looga hirneed waxaan u aragnay dadka Soomaaliyeed horta dad naxariis lama aha gacmihii waxaan nooga hiran dadka waxa bartilmaameed way waxaan la yiraahday dadka boonooyinka gacanta ugu hiran meeshii aad waxaad ka iibsanayso horta waa qaali looga dhigi adigoo safar musaafir oo qahooti ah oo karaan halin dukaamada Soomaalida dukaamaha meelaha oo wadankan waa bartilmaameed dalbalaamada way taa gacanta ku xiran tahay kor ugu soo fiiri anta maxaa waaye anigoo lacagtaan aqoonin oo Soomaali ka imaanay oo shilin soo Kenyaati aan aqoonin ayaan la yeelahay 50 shilin koobkii saliida qiim ahaantiis waxay u qalmay ma ogan dhifkaas aan kala korongnay Ilaahay markiisu jira waxa kala korongnay sida aan u imaanay maalin ayaa waxa nala siiyay sidii aan u kala tagnay waxa la weydiinin idna qaabishay aan lahayn boonada oo tikidii aan nala siiyay taariikhda markii la gaar imaada la yiri taariikhtii aan imaanay waxa naloo hayna aan lahayn dhibkaas aan haystaa dadka ummadda reer Soomaaliyeed horta waxaan ka codsanayaa kulligood horta ayagoo waxa weerin horta hadda in isku naxariisaan oo walaalahood kulli ay taalaysan yihiin marka horta meelahan oo xarooyinkan qaxootiga anaga maalin ayaa tagay ifow waxaan soo dad oo meesha iskala soo tagnay oo maaday dadka isla imaanay 20 maalmood ma joogin kaarbu helan aniga waxaan joogay 2 maalmood horta tan duruuf oo halkan dib oo halkan ka tagan baa arka oo gooni ah waxaan uga baaqayaa hay'adaha u gargaara ummadda Soomaaliyeed oo u halgama xuquuqda nolosha bini'aadamka u qaabilsan in dadka reer Dhagaxley gaar ahaan wax u qabtaan dhibaato na keentay dhibaan na keenay xool dhaqato oo loo aan dhaqanayno beeraan tacbanayno loodu waa naga dhamaatay loo handay dhamaatay beerna 3 sano iyo 4 sano oo kale waa abaarsatay abaartaas aan la soo haadnay dhibaato oo dhib ah tumun dhishan soo socon dhibay baa ka amaadnay maga dhibaan na keenay unuku dhaxdana hadana dhobliik soo barkaan hadana dhulkaas aan lagu soo dhacay waa soo rafaadnay 10 iyo hadaan tan 15 kale waa joognaa gaariyaan wadan maga hore gaariyaan wadan xaqan oo ka soo lugayn maga dhibaan keen unuku maga dhaxdana lagu soo rafaadiyay dhibaato aan ku amaan maxaa kala kulantay markaa timid anta maga amaadnaa maankii ida doxbaana la si kuwi keen waaba naga go'aan magi ka dabaatana waxba ma hele xagee degantay haddaan inta meelaad xagee taxataa waxaan saaxanaa guriyaan saaxanaa oo walaal asle cunno ma heshaan cunno kuwii hore waaba naga go'een hadda waxba ma haysan aan dhibaato aan soo cararnay dhibnaan soo cararnay waxba kale to dhibnaan wadan ma jiraan dhibaato aan hays unuka dhar iyo wax walba rabnaa guriga beesaha wax walba ka rabnaa unuka waqaajeysana Ali Ibrahim Jiidoy baleera Ali Ibrahim Jiidoy baleera baarka mamadu ruubaan ka soo baxnay baalan ka soo gudan hooyo riya dhaxda ku soo dhamaysan 27